بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مرتشرفته مدحض قرنكه حكومة يقريشي حردجينتا يقرصوركا مدحوينياشي هوري حسابتا قرنكا مدنكا iyo wakiilada ka jooga dalalka Djibouti iyo Turkey intaan kale arkayo iyo cid ka soo qayb gasho dhan anoo bahadaqaya soo dhawaada waxaan hambalyeeyay bogaadin u diray dhammaan shacabka Soomaaliland meel uu joogaba dalka gudihiisa iyo adduunka dacaladiisa lixdan guurada ka soo wareegtay maalintii xornimada Soomaaliland ee boqortooyada Ingiriiska ka qaadatay gobonnimadeeda waa maalintii ugu horeysay ee gobolada Soomaali ay ku nooshahay dhan ay ugu horeeyeen quradka ahayn inaan xorriyadii qaadano lixanka sano oo dhibtooda iyo dheeftooda walahaa oo halkan badan la soo maray oo guulo badan la gaaray waxaan joognaa Ilaahay mahadi waxaan joognaa nabad waxaan joognaa walaaltinimo waxaan joognaa midnimo Soomaaliland waxaan joognaa barwaaqo Ilaahay roob iyo qabow iyo nimcayna siiyay intaba Ilaahay baan ku mahadinaynaa dhammaan hambaliyo meel aad joogtaanba Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sanadkiisa sidaas oo kale inagoo hore u sii maray oo guulo badan gaadhay qof ahaan iyo qaran ahaanba inuu ina gaarsiiyo walaalayaal maalintan 16 Juun waa maalinta ugu qiimo weyn Soomaaliland ee ay ka xorowday gumaysigii reer Yurub ee Afrika oo dhan qaybsaday oo aynu foolaad ka ahayn qaaradda Afrika 60kii intii xornimada qaadatay kuwii ugu horreeyay aynu ka mid ahayn ayuu sii baxay koodii Juulaay aynu la midownay Soomaaliya sidii halkan ay ka sheegeen waayaraga adna Cabdullaahi iyo Sheekh Cabdullaahi iyo taariikhda qorayso waxaynu midnimada bilaashooda ku galay waxay ahayd in shantii Soomaaliyeed la soo doonto shardigan kale ayaynu ku xidhnay shantii Soomaaliyeedna maanta midowga halkeedii joogtaa Soomaaliland halkeedii joogtaa garwalo islaamka waxa Soomaaliland leeyahay oo midowga kaligeed garan maayo shantii hadda ay Soomaaliland ka mid u baynahay haddii kale nin waliba halkiisu gudooda hore ku yahay ninkii diidaanay isaga daali caawa ku raagmay taariikhda hore looga sheekeeyay dhowr qodob oo marka laga warramayo maalintii sidii wax u dhacay ayuu baa laba qodob ka saxayaa galabtii markii Sheekh Cabdullaahi wuxuu xurday nin weyn oo xoogaan ahaado 20 jir baan ahaa qudheed wax badan kama yariye dadkii goobta taagnaa wana ahaa maalinta dal kasta wana ahaade ee aad u sii xuso wixii dhacayay malcabd Sheekh Ibrahim Barawan ku jiray ciyaalkii ahaa meeshana waa ka dhaweyn galabtaas wuxuu markuu daayay calanka Ingiriiska la dejiyay lama saarin calan kale tima cadana waa ka gabiyay oo geerarkaas u tiriyay rasuuliyahaanayga hadiya jeer waxa la yiraahdaa beerta xorriyadda la tagay lama tagin habeenkaana calanka waxa lagu saaray meesha la guriga shaqaalaha taana goobjoog baan u ahaa labadaas saxiib u baahan yahay waayo markan beerta xorriyaddu markaa ma ahayn meel tago farda iyo waxba joogo iyo odayaal iyo qoladii maxay ilaalada ahaa iyo waxba ka buuxado ma habaysnayn maalintii dambe 26 maalintii ka horeysay waxa shiray maalintii 27 halka maxkamadda sare goodirka waxa fadhiistay baarlamaankii Soomaaliland la doortay waxa wehelinayay 3 ama 4 nin oo Ingiriis ah oo kuwii maamulka hay'ad ah barasaabkii muu joogin oo maalintii calanka la saarayay maalmii ka horeysay oo baxay waxa joogo ugu tuwayna markaa secretary generalkii oo ahaa Mr. Carl ninkii loo jiray waxa qura taandoonaya inaan taariikhda ku xuso loo ogaado waxa weeye waxa qura maalinta ay nooga soo baxay Soomaaliland hal qodob
وهذه دور لمدة القاضي لها أمور كلمة دعين واحد قدومي كارل نكى إنجليز كلا يدرك سياسي واحد اللي هلا دورته قدومي كحيان برلمان أو برلمان كان سومالا لا دورته هلا دورته قدومي كحيان شامع محمد قالب على دورته العودي وأنا استمر كده دمبو وكذا قريب قرايه ونقدر قدومي برلمان يحاول كده يسوتي هذه مركا مدحوينين ورا لها waxa xaj cumar askar xisbiga uu ahaa madax ama ay wax kala dooran lahayn aan loo ridi lahaa sidoo dhicis ayaa hadda lagu xisaabtan lahaa laakiin arinta ahayd shantii hal door oo aad si dadku waa looga sheekay xamaasad NFD looga reserve yahay looga qaaday ayaa wax loo hal socdo ilaa 6 nin baaha ayaa ka hadlay dadka lahayd taariikhdooda ما تشوفونه ما نقسمتها لكن آخر كده طبعا كواركي رجع هذا وحاول شورية وهذا حاتراها نور وهذا بس وهذا مايكل مريانو وهذا شيخ لورنتري شيخ قبل القصة دورتي أي أسنا كان هذا ومرها القرآن كنت فرمك دمان وعرفت لما أنتم وحيستبان مريان والله يا وإن له قرار الذي وحي إسكوا دمر القرآن الصومالي شنتها الله إسكودر على جارة قادر ما يلو كيبروهم بالله يستا وح جارة لما قادر شنتي سوالد بالدنيا بديك بيرون هاي إنه يروح إلى السود دمر لما أنتم شرط الله واحد وح هذا الدير شيء كارم نكاي جريسك هذا الدير شيء أو كوي وح وبهنتي inaad intaydaan isku darsanin inaad dhowr qodob ka heshiisaan waa ka koobaad dastuurka ku midoobaysaa waa ka labaad dawladda soo qaybsanaysa waa ka saddexaad cashuuraha soo midaynaysa waa ka afraad ciidamadu soo midoobaya waxaan loo tarin lahaa inaad qodobada ka hubsataan waxa dareen ku ahaa markaa waxba la sixi maayo shantii Soomaaliya la doona ayaa waxa soo dhan looga booday تكرر تاريخ أو قرارات شرطة أو دورية إن الحصراض لح بلاد كهر أنت هاي نافوت كيف يقولوا رجلين مركي الأركاية والحزب قاسر حوية هاي هذا عبد الله عيسى وحقا كاها مركا برايم مينستر oo dhibaato badan haysto sanadka u dambeeyay 3 goor codka Soomaaliya loo qaaday oo sida imika ay soo haystaan si ka daran isoo haystay ayaa wuxuu soo diray ninkii sharciga yar haysan jiray basbaas loo jiray waa inay kitaabkiisa inaga saara gobiyo wuxuu ku yiri dhibaato weyn baan haysatee intaan anagu kala baxayno idinku loo kaadiyay Abdullah Ciise wuxuu dareemay markaa in qoladani shuruudahoodii waxoodii wataan haddana mar labaad أي حمر تجي مركي لدورتي كبعد وفتو هو جبني محمد حاجرين على الله ونحرسته إسقنا أفكي سانكايا مركي أي تجين حمر هذا العدو ويا وفتو هرت لما قابل وعندما ما سوى دوين ما كاي ولا بده كله راي سوى أنا سمعت بس سوى دوين مركي الشيء يا حتى ما أنت هرا لما قابل هذا العدو ويا وحكيري وحكوت لها لو تبغى ما نحسته inaad ilaa waqti nasiisaan isku darkeena wali anaga agtiki iyo xubnaan diyaarin xeerkii weesh ilaahay qodobadaas waa qodobo u baahan taariikhna la ogaado in midnimadu aanay ka koobnayn laba dal oo kaliya shantay ahayd dabeetana runta biyo kama rabcaanka inuu caawa taaganahay aynu u sheegayna cidina waxa weeye shantii baa isu iman kara laba gaar la isku tooli maayo Soomaaliland keeda la sameyn maayo inta waxaan uga gudbi waxaynu caawa eegi doonaa soddonkii sano ee aynu midnimada ku jiray Soomaaliya iyo 29 aynu gooni u taageerayno waan maamureynay maxay ku kala duwan yihiin labada sawir ee jira ayaynu caawa eegaynaa marka labada sawir eegnana waxay eegnaa mustaqbalku soo noqonaya haddaynu ku horeyno soddonkii sano midowga ahayn dhibaatooyinka dhacay horaa loo sheegay oo loogu celiyay oo waxa ka soo qaadi maayo
laga bilaabo ninka la dhaatimo caddaa caawo kale iyo qolada koonfurta hadee jeer gabagiisay saaraan aan sidii eega kana saar kana sii 6 bilood ka bacdi muxuu tagay sida cadde muxuu yidhi dhinaan dowlad ba xabar jirta hal dabaal deg duqadii baarlamaanko dakadii dugsigii baarlamaanka iyo dekadii xabar baale berbere daadku ha qaado dooniyaanay ku leexan nimankii karal dooday ee daaqad ka saaray doodii isticmaalka dagaalka u qaatay waanu ahayne dumaal maanu ahayn danteena laba diiday watima cadde kolkaa dudadaanu ahayn oo danteena laba diiday buuri dee markaa haddii shantii la waayey tasaar ka nasiib qaadi mayne iyo dugsi qabeelad malaba ha iisoo qabanine danteena laba diiday dumaal maanu ahayn dudadaanu ahayn oo raggii kala daaqad ka saaray baanu ahayn adigana kuu joogin haddii aynu eegno 30 sano aynu Soomaaliya mid ahayn waxa la yiraahdaa imka deyn baa laga dhaafaya Soomaaliya markay isku jirtay Somali Republic oo malaayiin dollar waxa la hubaa in la oran jiray qabrigii deeqda Somali Republic markii la ahaa oo adduunka oo dhan lacag laga amaahday balaayiina Mareykan baa laga amaahday Ruush baa laga amaahday Yurub oo dhan baa laga amaahday balaayiin dollar oo imika aan tirada ahayn baa la amaahday deyn dalka loogu leeyahay oo horumarin laga sameeyay wixii mashaariic laga sameeyay la xisaabiyay buugga oo qoray ninkii loo jeeday John Drysdale 1990kii waxaan dhowr iyo 10 boqolkiiba aabo ku sheegay wax 13 ma hubo ka yahay imika laakiin buuggaas ku taalay dhowr iyo 10 yar buu ku sheegay wixii Somaliland ka soo gaaray dhamaanteed waxayna dushaabru ka garanaynaa oo inta badan ee dawladda way xusantay waxa ugu weynaa ee la sheegan karaa ee had iyo jeer lagu faaro waxa weeye wadada dheer ee ka soo baxda Muqdisho ee soo gaadha Burco ee haddana lagu daray ilaa iyo Karabayd horta wadadaasi waa China sameeyay ee deeq Soomaaliya oo dhan ahayd waxa inaga soo gaadhay waa tirada ugu yar waxaan ku kilomitir gaari weey laba waxa inaga soo gaadhay warshada sawirka dekada Berbera oo xogay kordhiga lagu daray airport-ka Berbera oo loogu talay qasdi military oo aan isagu horumar ahayn ahaa saldhig laga kareeyay dawlad sheeye ah oo inaga wax manaafacaadi inaga soo gaaray waxa inaga soo gaaray la mashruuc oo mid hirgelin midna aanu 2 sano wada soconin waa warshadii laas qoray ee kalluunka iyo mashruucii beeraha ee wajaale waxa soo raaca isaga oo kooban biyaha geedeeble ee jaaro ay sameeyeen waxa ku jira oo soo kordhay ee dibadda inooga yimid ee la oran kara xagga tacliintu ka ahaana waa dhismihii iskuulka nimka jaamacadda Hargeysa oo bilow ahaa markay soo gaadhay iyo iskuulkii Jarmalka ee Burco intaasi ayaa inaga soo gaadhay mashaariicda kumaankunka intaas oo dhan hadii la isu geeyana 10% kama aha barnaamijka la faan oo la farqama qodno rubiciid ma aha waxa ay soo gaadho warshada Mareeri ee sokorta maariidii la geliyay ruuciid ma aha oo 10% kama aha xaafada waa bari boondheere iyo xaafadaha wadooyinka laga saaray markii wadooyinka dhisayay ee Brazil laga saaray xoolihii la geliyay rubiciid ma gaadha iska wada wadooyinka dhaadheer jubooyinka wiigash talaabay waxa ka qiimo badan oo ka weyn intuu Faysal Cali Waraab mashruucii ka fuliyay Baydhabo iyo markuu dhisay Galbeed oo kan hor fadhiyay taa intaas ay naga soo raacday 19 halkan nimid dhamaanteed naga qaxooti ka soo noqday xariyay qaxooti ka yimid qurbaha qaxooti ka yimid khaliijka Carabta oo intuu 30 sano Carabta ku hayay Isriib ku dalka Xorobay urata qaxootiga ugu badnaana wuxuu ka yimid Xamar iyadoo oo ilkaa ku sida caruurta wixii ka soo nabad galay ee aan la dilin ee ragga lagu dalay dariiqa ugu mudnaan ninkii qori jiray buugii mulaaxo ee reeb Brambo ahaa reeras qoray oo ahaa Briska ahaa jiray hebel cadde ee uu buugii qoray sheekadii wanaagsan mulaaxo loo jiray uu ka mid ahaa rag iyo dumar wixii dhibaato dariiqa markii la qaxay ka soo gaarina in badan halka fadhida
ayaa ka mid ahaa inagoo wada qaxootiya oo xoolihii wixii aan lahayn xamar kaga nimid oo guryihii filooyinkaa xamar kaga wada nimid oo wixii baanka yaale kaga nimid ayuu nin waliba kusoo noqday Somaliland iyo halkii uu ka tegay 60kii markii la lahaa dowlad baa la midoobo xamar oo barwaaqo laga gelayaa dadkii halka ka yaacay wixii ka nabad galay bariga baabuurtii dhexda lagu dhici jiray iyo xabashada loo jirtay inteeni ka soo nabad gashay iyadoo qaxootiga ku badan xawarka soo noqday baa halkaasaynu ka bilownay waxaynu ka bilownay magaalooyinka waaweyn oo lahayn biyo oo lahayn nal oo dariiq la mara aan lahayn oo meelba miina ku xiran tahay wadooyinka guryaha badankooda waaweyn sida Hargeysa iyo Burco iyana ay ku xiran tahay Chalfis talaynaa dadka la heesaa ay lugaha ay kaga xiran tahay sakeedka dariiqyada oo imika curyaaminta u badan naafada ay yihiin kuwa miilooyinka ugu soo galay lugaha gooyeen ama indhaha iyo gacmaha tireen ama kuwa dhinteen ay u badnaayeen aynu soo galay magaalada badankooda iyagu wada nin waliba halkii uu dego laga bilaabay nolol dhibaatooyin wayna soo mareen waayo dawlad duntay dad baahan jeel male booliis kala qabta male meel wax laga cuno male Hargeysa saa lagu jiray ilaa biriya dheeraad baan maraya inuu qaatay hudheel la tagaa oo la taagnaa oo oday iyo suldaan iyo sheekh iyo nin sharaf laba ninku sidoo u socdo maalintii hadduu helo meel lagu karinayo qamadi oo biyaba loo helo ay ilaahay mahadiya gobolada bariga 30 sanadood ee mideynta ahayd markii la soo noqday magaalada Laascaanood meel biyo laga cabo meelahay waayo ceel qura lagama qodin waxa la xidhay wasaaradda biyaha loo jiray waliba reer Laascaanood baa loo dhiibaa lagu xaman jiray markii la soo noqday waa kan marxaatigeed ceel laga cabo ma jirin meel isu taagaa ma jirin waftiga horeeyay baan ahaa ee tagay Laascaanood 9 aniga iyo diqsiyo ilaahay u dhaxariistay ma jirin hudheel yaro in cilmi lahaa ka fura halka haddaanu ka bilownay maanta halkee wada joognaa leena ma ictiraafin baa la yidhaahdaa dhaqaalaheena adduunka ulitay baa la yidhaahdaa iskeed isu magacawday baa la yidhaahdaa adduunka kuma jiraan baa la yidhaahdaa halkeenu joognaa maanta bal dhan kasta u fiirso oo kuwa la ictiraafay ee intaa lacag qaadanayay iyo inaga qof walba qaran waraaqo garaaf sameeyo hadday tahay nabadda hadday tahay hay'adaha dawladda hadday tahay horumarka baaxmitarka hadday tahay sutaga dadka isdhexgalidii ammaanada dhan kasta u qaad labada gaar waxaanu ka bilownay nabadeynta taashaq Cabdilaahi Sheegaa laga bilaabo tacab badan baa loo maray inta uu sheekhu sheegay waxaan xusinayaan ugu darayaa horta mid baan xusinayaa waxa weey ilaa cimriga hau dheereeyay xasil meegu nuur yahay ma dhibo wali meelan maqal geeridiisa xasil meegu waa dadka maanta Soomaaliland u daaweyn wuxuu ahaa macallinkii isagoo oo principal ka soo kaxeeyay Saleebaan Axmed Guleed professorka jaamacadda Amuud haysta isagoo caruur oo loo wada ka soo reebay iskuulka qoray u ahaa maanta uu leeyahay cimrigiisa la hadaayay inta dadka wuxuu baray xasil beeyahay maanta loo binu go'na sheekhu waxyaalaha badan soo wada maray oo loo joogaha waxa ka cajab badnaa oo caawdo sheekhna waa joogaaye inaan ka yar sheekeeyo shirkii geerisa Sheekh Cabdilaahi oo ahaa aniga kii igu adkaa ee biriya bad beelaha isku laayay tirinay waxa uu ugu dhibadnayd Sheekh Cabdilaahi maanta aan tukayeen bay hawlo baday maanta Sheekh Cabdilaahi baa tukanaya iyo Sheekh Muuse Goodaan dadka waxa soo maray sheegayay ayaa ugu dhibadnayd ciid baa noo soo gashay geerisa la joogaa reerahan istilayaana waxay aamin waayeen oo akar weyn inay soo raacaan salaadii oo halka ay Sheekh Aljoor iyo Sheekh Muuse Goodaan markay dhigeen ay qolada kala tiyaano ku xirmay halkaas ay uga ترى مال حان استاغو تضوط خبرات ما خلفت استووا مسجل هذا يرش عليه وحي جوجو يا والله نبضة تالو صومر قال يا ريت شوفتاي يا وش لو صوري كميتها ما هو وين شيخ جوجي ما انت الفنيه كله لكن ارجده ونقول شيء لكن كل مسجلات ما هو كفته بدل مركز ما كان عاي نبضي له ولوغوري دولة مسكينه واتها لغا سو شيكي waxaynu nahay dalka aan la ictiraafin ee halka ka soo qaaday ee waxa siyaasteen ee 5 doorasho galay
oo saddex madaxweyne bedelay iyagoona cod ku kala baxay bal afrikada dhowr iyo afartanka dowladooda hal eega intaa la samayn kartay waa ilaahay mahadi iyo awood ilaahayna siiyey ila inagu dad kale waxmayna dheerayne ilaahay bay nagu gargaaray inaan cudurba kaga dhex baxo waxaanu qaaday saddex madaxweyne inaan dooran isku bedelo oo dheftay afrika dowladda afrikaanka intaa aynu jaarka nahay waa ay dowladda intaa samaysay Kenya mar laba goor bedesho dagaalkan ay waa looga kuwa kaga dhintay waxaanu samaynay laba doorasho dowladda hoose oo mar xisbiga furay waxaanu dooranay baarlamaanka oo in badan imika joogo haddana iyaga imkaanu kala qaadanayna iyagana leenahay dee hore u diyaar gareey shuruucdii aynu bedelay 15 baa fadhidana way dheer tahay inagoo ay soo gol oo ka mid yihiin waxaanu dhisanay ciidamo amni waxaanu dhisanay wasaarado inoo wada shaqeeya oo qaar badan oo la ictiraafsay ka awood badan waxaanu maanta haynaa halkaas oo ardaygu ka tagi jiray oo xamar la qaban jiray oo meel seexda aanay jirin oo ciidad awranta aanay jirin oo dhammaan raggii xamar sagaalka wada fadhiya ay wada garanayaan wixii ka qabsaday si loo helo shaqo ama jaamacad maanta taagtoodu waxay doontaa ahaatee qaar fiican oo aad u sareeyo master degree-goodana waa leeyahay qaar bilowna 20 jaamacad bay noo furan inuu gobol walba waxa laga helayaa inuu ka soo bilaabo bidaa'iga elementary sulka dhexe ka sare iyo jaamacadda oo laga yaabo midna inuu gobolka loo gudbin aynu ku sameynay 30 sanadood aynu ka maqnayn ee laynagu lahaa dowladda iskeed soo dhawaaqday marka nimada ahayd laba iska dariiq u lahayd sheekh iyo camud bay u lahayd baacimirka soo noqo maxay noo qabsoomay maanta Somaliland waxay leedahay intaasoo bilyaneer oo business xor ah oo suuqa xorta ah caqligooda iyo kartooda ku shaqeeyay maal qabeennada ugu waaweyn ka mid ah 30 sano ee ay isku jiray barjirde xuseen halka ka tagay mooyaane taajirka la sheegay ugu halagu soo diro Somaliland maanta imisa hadii la yiraahdo hal eego Forbes jeeda lagu qiyaaso ee maal qabeennada Somaliland imisa uu garanaysaa milyaneer ama bariye ka weegsanay shirkadaheena isgaarsiintu waxay ka mid yihiin kuwa ugu adduunka ma Afrika ugu casrisan lacagta saadka lagu kala wareejiyo Kenya u baabay ugu horeysa Afrika maanta Mareykan iyo Yurub ay higsanaysa saynu u kala bedelo saadka inuu bedelo shirkadaha xawaalada dahabshiil oo kale dhowr boqol oo dal bay ka furan tahay iyadoo xartooda hargeysa tahay كمو هيرجلس دو كيسلا إنه شوفني قف إنت عن لكسبي إم مسح عسبتار أو برافت إنه ما أنتظر أو قار نبر كلامه قرو أو وضنها لو قرو أو قبل السماء لا نبر كتب عضو إن وضنها الله قرو هرجس ما تيجي تشوف إم مساي ما دع عذرها وين كعروس عسبتار كأدنى هرمرك إنت عليك إن أول بري إنه صدق كاسنا قادني بلو قياس صدق كي إنه هرجع شوفني ودويك iyadoo oon adduunku lacagna waana bank adduunku lacagna u lahayn iyadoo ay laftu aanay inoo yeerin oran sida dhib ay gutagijiya wadada ay cid waliba ka baqatay ee Ingiriis ka baqay ee dawladda Soomaaliya ee caawidaheeda ay ka baqdeen ceer gaabo iyo burco maanta waxa uu haray 50 kilomitir 3 sano gudahood oo Soomaaliya samaysatay oo aan cidna inaga caawin bal waxaad ka fiirsaa magaalooyinka aynu ka tagnay 60kii dadka waaweyn oo aynu u soo noqon iyaga Soomaaliya Laascaano Ceergaabo Burco Hargeysa Gabiile Boorama waa tii magaalada Hargeysa mooyee laami lahayd maanta aynu soo qonay 91kii 19kii maanta inta aan magaalo sheegay ma midaan dhowr kiiloomitir oo laami lahayn baa jirta صدقي أن يسكت في الصومالية يلي إحنا كإنجليز في نهايتي مدنا لا بنقول مثلاً قبل ذي ودوي كين ما ترى تكتوى ولا ورس عرارة إنه هبلاي ولا بياسار يرسلتنا على مدرب التاجر بيها إنه وعدك بيها أيها إنه وعدك
sahanka aynu samayno qurastorka sanadood aynu dalka oo dhan ka samaynay ee magaalooyinka degdeg biyaha ugu baagayna Hargeysa ka mid tahay Laascaanood ka mid tahay aynu u samaynay 30 sanadood isku jirnayna samay ee mid walba maanta buug dhaqaalihi u baahan ee la diyaariyay magaalooyinkeenu halka inoogu adwa biyaha Boorame Gabiley Hargeysa Berbera Burco mooye inta kale biyo wada baahantay iyo Ceergaabo labaas biyo xoog loo ku fuliyay laakiin waxaan ku faraxsanahay hubaa inaynu intaba u hayno daraasadii kuwa wax laga qaban markaynu eegno ceelasha dhaadheer ee la qoday intaynu dalka ku jirnay marka la isbarbar dhigo boqolkiiba 50 bay ka badan yihiin ilaa Ingiriisi kuwa la qoday koob iyo iskala asaga sanadooda joogay dawladdu waxay qodayba mid walba ku dartayba tii hore Siiraaye ku miyaha u badnaatay dhamaantood ayna gaarin waxa inta inoo dheer cohesionka wax wada qabsiga marka la waxaanu qabsana aynu isu dhannahay maxaa kamid ah ilaahay ku qaaday waxa la tacaalina cudurka la yiraahdo COVID-19 sidoo qof baan garan intay ilaahay hawna xariso jannada ka waraabiyo culimadu waxay tiraahdaa dadka daacunka iyo kuwa cudurada caynkaas waa ahlu janno ilaahay jannada firdawsaha geystay ila tamayna garan intay inta kale weyn ka badqabnaa markii cudurkaas lagu dhacay qaylo ku dhufanay aanu iskaashano aynu isku tashano cid inoo maqan dibadda ka maqan sugumeynay waxaynu gaadhnay midnimadeena iyo soo golaanshaheena dhammaan Soomaaliland oo dhan maanta cusbitaalada Ceergaabo ka Laascaanood ka Burco ka Berbera ka Hargeysa ka Boorame in loo hayo qalab aan 10 sano ayna gaari karin oo ayna samayn karin mid walba in loo hayo oxygen ku filan iyo laboratory ku filan oo ilaa dhiyanka qaadaya inay dhammaantood wiigan soo wada gaarayaan taana ay keeneen lacagtii ay isu geeyeen dawladda iyo shacabka inagoo isaamisan oo midaysan oo aan jirin 30 sano ee aynu lamada isniin qolada halka inta waxaan ku soo koobayaa dulxaadsi wixii aynu qabsanay dhinacyo badan marka waxaynu eegaynaa 30 sano maxaynu macaashnay 30 hore maxaynu hayn oo marka la leeyahay xawr ku soo noqo masada kala xabsi ku noqda halka aan marina hore uga socdaan raba oo goorada dawladda yeesho haddaan inta horumarka inta ku daayo waxaan u gudbayaa arrinta wada hadallada waxaynu hore uga heshiinay 2012 shirkii London ayaa golayaasha loo ogolaaday in la wada hadlo shirkaana waxa ka soo baxay inaynu wada hadalno walaba dawladda simana waa talaabadii hore soo hadalkeenu ku bilaabmay wada hadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dawladood oo siman waxaan ku dhamaanayaa laba dawladood oo siman wax ka yar cid soo qaadi mayso ereyga isdhexgalka heshiiska waxaan ku soo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda la isku dhexgalayo waxa la yiri in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ay soo socodka waliba bracket baa la geliyay saddex qodob sportska iyo culture-ka dhaqanka culture dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub waayo business hortee buu bilaabmay lacagteena iyo shirkadda isku muraaqay isu socodku dad Soomaaliyeed oo walaalo uu iska socdaa wixii isdhexgalaya horta siyaasad iyadoo way reeban tahay sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka xeer baa joojiyay kuma jirto qofkii siyaasi ama siyaasad taga intuu iska taga siyaasad ka qayb galay waa dambiile qaran isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaar shaabta kubadda yaa la doonayaa inay tagto koox waa inay tagaan iyagoo baasaboorka Somaliland sita oo dawladda Somaliland dirtay oo magaca Somaliland ku ciyaaraya koox muusiga tagaysa ama ruwaad tagaysa
waxay tegaysaa baasaboor somaliland iyo calanka somaliland iyo magaca somaliland qof kaliga uu tegi karaa qof muraadle hadduu socdo waa yeelkii laakiin wixii institutiona ama kooxii waxay ku tegi karaan baasaboor somaliland calanka somaliland magaca somaliland fiisay ka soo iyaysiinaysaa muqdisho waa loogu dhufanayaa haddii intaa la waayo cidina tegi mayso waayo isgaadi mayno iyagu ma ogola inay sidaa yeelaan fiisa bixiyaan waxaynu arkaan gobollada waqooyiga innaguna tabayo kaa tabaye waxaanu arkaan laba dowladood nahay qof aan fiisa calanka somaliland iyo baasaboorka somaliland loo fiisaynayni isugu tegi mayno ma xili karno lacagta isdhex gashay businesska isdhex galay ma xili karno dee qofka soddonkiisa soo siyaarinaya ama qofka ka u tagaaya ama qofka shakhsiga muraadkiisa tagaya iminka iyo hadda labada dhinac awooda oo socda waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan odhanayaa somaliland marmar baan la yaabaa dadka baqda ee dhaa waxbaa sana iyo waxbaa sana dee horta nimanka waxaynu dhahnaa xornimadii naga luntay 60kii way luntay raadacaynu nahay ninka raadacadina dhib walba u mana baqdo shakiga ma qaba isagaa baadisa doonaya qolada geela raadisaa markay socodku dheeraado geelu in badan u maqan yahay saaladay taabtaan saalada geel ayaa la eega markaasay saalo qoyan helaan dabeetana iyagoo 7 cisho qatanaa u ordaayay bay dhahdeen hadduu dhow yahay daalkii wuu ka baxaa anigu waxaan qabaa maanta inaynu saalo qoyan hayno oo baadidii aynu doonayna ay dhowdahay oo meel laga daaliyo meel laga wada cabida aynaan joogin labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaan ee inagu inaynu baqanaba maaha waayo dhammaanteen gurood baynu nahay xorriyaddeena lutilixinkii waana nagu siman nahay nina ninku eedeyn maayo waxay noo balana midnimo wax wada qabsi baadidoon loo midaysan yahay qarankoo la wada ilaaliyo in la isu dulqaato inaynu mustaqbalkan ka fiican aynu joogno dhowaan gaarno ayaynu bala dhammaanteed wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu